maalintii ninkeygu uu ka tagaayay Istanbul aan deganeen uu baxayay aniga dhiiga caadada ii joogay garoonka ugu raacay wax uur ah ma aanan lahayn garoonkii oo tagay waa soo maxsalaamay kadibna gurigeyga ayaa ku soo laabtay waa la joogay waxay tiri markii taqriiban ay kasoo wareegatay 14 maalmood camal xilliga xaaji oo bax 13 maalmood camal ay kasoo wareegatay oo guriga aan joogo ayaa waxaa dhacday tiri in ay iga halaawday tubada oo jikada loo isticmaalayo meesha alaabta lagu dhaqo tubada loo isticmaalayo oo qaybta qasaaladii waxaas dhan ku xiriirsaneed dhar dhaqaan isdhahaayay tubadii hoose biyo ka deene qasaaladina way qeylinay dhahday biyihii ma qaadanayso qowq eelada qasaaladii way qeylinay marka lambarkii aan wacday tiri oo gaaska ninkii ii keenayay waxaan u sheegay tiri inay iga halaawday bahashi wiil Soomaaliya markuu wuxuu nin Turki oo ku fiican waxaas aa lagu soo diraaya oo wiilkan la shaqeeyo oo turjumaan reerkan u ah oo gaaskii waxaas keenaanay dhahday kabacdi ninkii ii yimid tiri ninka markuu ii imaaday wiilka Soomaaliga ahna waa uu la socday tubadii iyo wixii habeey waa iga tagay dhahday ninkii markuu tagay haddana maxaa dhacday isla maalintaas inaan haddana gaaskii dalbaday labahan gaaskii ima taali tir hal haan waa markay go'do horaan ka dalbanaa mashiin oo waxaan qabaa tir korontada loo isticmaala asagana oo cuntada korontada karinayso balse mar walba gaaska markuu iga go'a hore ka dalbanaa wuu ii imaaday wiil waxay tir nin dhaxaad waayo oo Turki ah oo bashaash ah oo kaali iska arag ah markuu ka kaftamaa af Soomaaliga dhex galay xoogaa oo ka fahmaya ninkaagi ma baxay haa wuu baxay goormuu baxay xiligaas soo baxay nin oo waxaa kaftan badan gaaskii ii rakabay haanti ibirtiheedo iga qaaday dhahday telefoon weyn iyo telefoon yar ayuu watay telefoonkii yaray oo meesha kaga tagay ku talagal inay ahayd in kale laakiinse ani ma sheegi kariye dhahday ilmeyga marka afarta cunug waxay tiri way kala fogaayeen dhalma ahaan maadaama ninkeygu oo maqnaay waxay dhigtaan madrasa meesha ka dhow oo Soomaali ay leedahay ayay dhigtaanay dhahday ninkii waa baxay 30 daqiiqo kama soo wareegin haddana wuu ii soo laabtay waa mobile kaga taga meesha ana jikada markuu asaga soo baxay ay ugu dambeysay tiri dib dambe ugu malaabanin xili ilmo cunta u karinaan lama jooginay tiri waxa isku diyaarnaa inaan iska seexdo xiliga ilmaha laga gaarayo waqtigooda cuntada dhan saakaan karsaday waxay tiri marka iridio ii soo garaacay waa gambaleelka markuu yaaba aniga waa maxaa dhacay mobilkeygiya ka tagay waa ku soo qabanaa ma dhihin iridio ka furay tiri qadartana meesha ka qorneed iridio markaan ka furay tiri ninkan wuu soo gudbay markuu soo gudbo warwareystay maxaa waxay yeeray TV-ga ii shidan qolkii TV uu soo gudbay ani maxaa u soo gudbay iyo waxaas iyo waxaan dhanba ma dhihinay dhahday kadib ayuu wuxuu dhahay biyo caba ma isiin kartaa markaasaan dhahay haa frinjeerka tagay dhahday biyo cabitaanada diyaarsana ku jireen u soo bixiyo u keenay biyaha goosa haddana i xanuunay shaxaan rabi lahaano maanta maxaa la lahay waa ku haystaaba intaan waa ka nasanaa shaqadii camalno inta wax geeya aba idhibtay mootadeeda hoosay baakiman tahay waxay saas u idhahay dhahday waa ka aamusay marna baawurka gaaskoo wadaahay dhahday markuu xaafadaha caadiga warwareegsanayeen wuxuu wataa oo la leeyahay kuukarkiya gaaska tubada iga halaawday waxaas ii farsamayaqaan uu yahay gaaskana wuu keenaa baawurka gaaskana asaga ayaa wado ana Turki ma joogay wixii la ii sheegay idin sheegaa mogtiin marka waxay tiriye sidiisa u ahayd ninkan jikadii soo galay tiri bahash jelmada oo korontadan dabka gashtay soo biyihii soo karkariyay sokortii wixii anoo wada meesha soo dhigay bakeerigiisa u shubay anna bakeerigiga shubtay bakeerigi markaan shubtay bal filmaa la jilaa bakeerigi shaax ahay markaan shubtay oo wuxuu ugu dhahay sokorta iskaga badi sokorta iskaga badi biyo karkaraha agtiisa yaalaan bal moo ku darsadii tiri biyo caadi ah tubada iga keeno dhahay tubadii aan soo aaday mashaaxiyo wax igu daray Allahu aclam nincu isiya afka gashtay maninaciya waxa la haayeen ma ogey tiri markaas aamiiro dhan igu dambeysay soo doonto iga yeeshtay tiri waana oo iga dhaqaaqay ninkii anoo qolkii iska jiifo oo ilmihii xiligoodii inta la gaaray dad meesha iiga soo wadeen olba anaa soo wadi jiray ilmihii irida ku soo daaleen irida ka furay anoo madaxii laba ii yahay madaxii dhan i waaweyn yahay irida ka furay dhahday ilmihii irida markaa ka furo wax la iga qaldan waan dareemay tiri inay wax si iga yihiin ma aqaani qoyaan iyo waxaas waa arkay xaalkeygu wuxuu yahay dhan waa ka si waayay dhahday shaaxi asaga oo shubtay meeshiisa ayuu yaala afkiisa ma saarin ana keyga oo keliya cabe waxay tiri ilmihi qadasi siiyay wixii qolkii iyo shaax iyo wixii ka soo qaaday ilmihi cunto siistay wixii seexanaya iska seexiyay waa qubaystay duhura dukaday waxay tiri maalin gaaska hadana markuu iga go'ay aan wacday oo iimid waxaan ku dhahay maalintii aniga ma xasuusto xili baxday ee xili imaaday intaba ma xasuustiye walaalow si wax u jiraan ku dhahay markaasuu wuxuu ugu yiri waa ugu qoslay markaas maxaa ku qoslaysaa waa iska ka celin waay naag ninkeeda dhowr iyo 10 maalmood oo ka maqan yahay ma buu ekeeno adiga qof oo waxa ahayd noo horor ay camal
وأسكك علي واي حقاقا كسيك بعدين وكاتا من واسع قانتا أمالينا وريا واكو دعبينا سانا كويلا سانكو أي قبسي دي تري يا أو دعبيني يا ستقانا بل إدى آتقاني ugu dacbay iyo cid alaale cid aragtid kaaga darante markuu dantiisa iga dhameystay tiri oo mobilkiisa too qaado iduubay wuxuu dhahaa kaasa isfiiri anoo diriciga qoorta ii saaran yahay ilaahay xalkaygu ogyahay oo ninkaas iduubay dhahday haye aniga kaligay ma ahane dhowr gabdhood oo Soomaali ah kuwa jaamacada loo soo dirsaday oo asaga saaxiib oo ka dhigtay oo laakiin ayaga raali ka ah soo asaga sheegay wixii dhinta Soomaali hadaa tiino ugu dhahay tiri qiimaha aaleediin maxay tahay maxaa waa ku dacweena war dacwadaada yaa meel ka soo qaada dada gurigooda ugu imaadeen dhulkooda ugu imaadeen waad darantoo dhahay geedka gaartay mire ka guro afkeyga aamusnaan maxay tiri waxaan sheega ma aqaani ida u dacwoodo ma aqaani ninkeyga waxaan dhahay ma aqaani gaaska nin kale tare lagu soo bedela asaga dantaas kaliimo baawurka u wada ma aqaani qof kala gaaska keen lambarka daawacno nin kala qabanay gaaska waa keenay lambar gaawan aa laga wacay tiri cidi taqaano lambarkaas hadana gaaska keenayo waxay tiri guriga qaybta aan ka deganay dhanaanacay meesha ay soo urtay waxaan dhahay guriga mareeba aniga ninkeyga marmarsiyo barbara meeshaas ka soo baxaysa saan waay barbara meesha guriga aan wada qabsanaysaan dhahay nin buufiya lagu soo diraa mareeba dhahay laga raro waa laga soo raray tiri Istanbul aan deganay Ankara ka soo dhacay dhahday Ankara maal aha meesha ahayd aan ka soo dhacay tiri magaalada kale aan ka soo dhacay tiri oo guriyahoodan raqiis ee Istanbul ka raqiisan oo maxaa lahaay Soomaalida hadana qayb u badan tahay ay jirto meesha imaaday waxay tiri uura ugu soo baxay waa walacay waxa raadiyay tiri si walba uurkaas aan iskaga soo ridi lahaay waa ii suurta galibaysay dhahday xiligi waxa la gaaray tiri ninkeyga oo imaan lahaay uurkeygana waa 5 bilood oo markaa naga maqayaa ninkeyga wuxuu dhahay fasaxaan helay waan soo laabanaya waa mirmiri tiri imaanin maxaa soo doonay hadda lay baxday soo shaqeey maxaa ka qaldan aan uurna yeelan waa ogtahay maxaa dhacay saana tahay maxaa la soo carray istuuf ninkii ku xanaaqay dhahday inta ninka ka daba qeylinayo isdiyaarinteeda xamar aan ku soo aadana isku diyaarinay 7 bilood ay u qaatay tiri uurkeyga 7 bilood oo noqday waxaan sameeyay ma aqaan cid aan wax u sheegtay ma aqaan hooyaday ee aheeday tiri qofka ugu horeeyay oo wax u sheega hooyana telefoonka ugu damisay hooyo saas ugu dhacday caloosheedina had intaas ay mareen hooyana telefoonka ugu damisay yaab iyo amakaag dib dambana iyo soo bixinay dhahday dahabka haysta gad wixii hay gad nin Soomaali oo meesha joogo oo hay muqalas la xiriir dheh ani ilmaha ku bixi lahayn rabaa iqaamooyinkiina keenuu dhahay iqaamooyinkii soo bixi tusi wixii lacag iiga cunaha asagiina aan soo baxnay tiri maalintuu ninkeyga soo duulay oo Istanbul ka soo degay anigana waxay tiri magaalada Muqdisho ka soo degay waa ka soo tagay tiri Turkiga markaa ka soo tagay dhahda markaa asagana oo yimid meeshi WhatsApp la iskala xiriirayo WhatsApp igala soo hadlay maxaa dhacay guriga cusbaa ii tilmaanta tagay guriga alaabta xitaa ma taala lahayn naagtaada waa ka guurtay guriga la dhisay u jiraan saaxiibo Soomaaliyan jiraan dhahay hotel iska deg markaa rabtidna Soomaaliya imaw afartii cunug saa u sii wad waxay tiri guriga hooyadayaan geey hooyadayna waxay tiri iridda iga bax waa ceebays waxaan sheegay ma aqaani ilmaha bartaan ii dhigay iridda iga bax gurigaas gabadhay saaxiibadihiina imaaday xiligaas 7 bilood ahayd uurkeeda bal dadka kale naxariis badan kala nasteexa badan ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofka qalad woo gala maqaldamana waa ilaahay subxaanahu wa ta'ala gabadhi gurigaas markay imaaday sidii uu oynayso oo ninkii yimid oo wax u sheegaa laheen hooyada waxay tiri ilmihi inta isoo dhigtay way carartay gabadha wuxuu dhahay 2 biloodba waxaan ku arkay qalalaaso dagaal telefoonka inay ugu dagaalamayso ee wax ka qaldan yihiin gabadha ma xanuunsatay depression ma ku dhacay maskax xanuun ma ahay gabadhi si camal hadda inta laga raadinaa telefoonkiigu wuu shaqeynay tiri odow isoo duubo WhatsApp-ka waa uga jawaab waxaan saaxiibow aniga wax aan ku sheegay ma aqaani hooyaday wax ku sheegtay may hooyaday wax ma ii sheegin ani uuraan leeyahay abshir waa uur hadaa leedahay yaa beheli karo war adiga uurku kuumilhi marka adi aan ku sagootinay ani waa ogeed inaan fasax ahay oonan uur iyo waxba aan lahayn naagaha qaarkood waxaa jira ayagoo uur leh inuu dhiig baf iska soo dhaho dhiigis inuu ahaa laga yaabaa iyo waxaas u dhahay bal hayim iska dhiyo tir mayaan ahay tir may saaxiibow ninkii saas ahay oo keenay gaaska inta adiga joogtaba noo imaan jiray asaas yeelay aniga kaniini mu isii ma aqaan shaax mu igu dar ma ogi sidee ninka guriga uu ogolta as aragno dhahay marka wiilkii aan hee is aragno mis arkeen hadda is aragno waa idilay tir marka hadda is aragno waa idilay inta idili lahayd oo jidkan leeyagu jiijiida lahay oo la ceebeysan lahay hadda meel aadamo ogolay halay dhahday sunacaba waan is dilaahay gabadha marka waxay ku waanaysa inay is dilin waxaan qadar ee tahay ilaahay uu ku qaaday ayadana shaydaan uu ku qaaday ilaahay uu ku qaaday aan dhihine waxaan qadar inay tahay
oo shaydaan uu ku qaaday shaydaan isku qurxiyay ninkaanina waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya